aad baan idinka mahadcelinayaa ajiibka aad soo ajiibteen in safaaraddu idin yeedho oo ka qayb qaadataan awal baad hormadku u haydeen gurmadka dadka walaalaha Soomaaliyeed ee dib ku gaadhay sidaan wada ogsoonahay waxaa dhacay dhul gariir weyn oo ka dhacay koonfurta dalka Turkiga kaasoo saameeyay ilaa adigu 10 gobol balse ay ugu culus yihiin 4 gobol anagu ka safaarad ahaan markii dhul gariir ku dhacay shalay subaxba waxaan raadinay xog ururin baan sameynay waxaan u yeernay guddiga jaaliyadda waa shirkan hadda aan ku jirnaa waa shirkii labaad waxaan isla garanay inaan marka hore xog raadino xog ururin sameyno waxaa noo soo baxday in dadka Soomaalida gobolada fulaqsan inay jiraan 4 gobol oo hadda ay aad ugu badan yihiin oo 4 gobol ugu dhibka badan sida Gaziantep iyo Kahraman Adiyama iyo Hatay iyo Maalto soo raacda kulli sida wada ogsoonahay waxa hadda warbixintii guddiga meesha aan ku wada fadhino ayaa jeediyay warbixinadii ardada iyo dadka jaaliyadaba laakiin anigu baaqa safaaraddu ay diraysaa waxa weeye sida aan wada ogsoonahay dadka Soomaalidu waa mid wadanka wada degan waa hal jirbi ka kooban yihiin baaqa aan dirna waxa weeyaan ka codsanaa jaaliyadda wadanka degan ganacsato leh cid walba leh in ay dadka Soomaalida dibku soo gaadhay inay garab istaagaan ayaan ka rajeynaa insha Allah taala aan ka codsanaa inay garab istaagaan wacyigelinta ay soo diri doonaan guddigan jaaliyadda oo ah guddi isxilqaamay oo ah guddigii jaaliyadda in iyaga ay lagala soo xiriiro qaabka loo gaarsiinayo dadkaas gurmadka loo gaarsiinayo in iyaga lagala soo xiriiro ayaa rajeyn doonaa insha Allah taala anagu ka safaarad ahaan waxaan dirnay gaari bas oo soo qaadaya dad ku xanibnaa Adiyamaan oo ka kooban 34 qof dadkaas sidaan ogsoonahay waa magaalada deganayeen waa magaalada burburtay meel banaan ay fadhiyeen waxa la keeni doonaa hadii la ka dhigo Ankara sidaas la qaadanay guddigana in laga hawl galo dijintooda iyo maxaan ku raday in la gacan qabto waxay sugaysaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed ee degan dalka Turkiga sidaan wada ogsoonahayna waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed waa dad walaala oo gacan furan oo istaageera anagu horaan u aragnay arintaas oo marar badan oo dib dhacay oo qaraxyo way dhaceen sida Soobo kale waxa ka qayb qaatay si wanaagsan bay uga qayb qaateen samata bixinta dhibaatooyinka dhacay haddana sidii si lamid ah waxaan ka rajaynaynaa ka codsananaa in baaqa la ajiibo oo la soo dhaweeyo oo dadka Soomaalida ee la keenayo maxaan ku raday la garab istaago qodobka labaad wadankan aan joogno ee aan martida ku nahay ee dalka Turkiga walaalaheena sidaan wada ogsoonahay waa dalka koobaad ee Soomaalihan markaynu dalkeena ugu dhow waxaan rajeynaa iyaga laftigooda inaan garab istaagno oo haday noqoto dhiig shubis qof walba dhiigiisa uu ku tabaruco waxa weeyaan waa arin aad u wanaagsan hadii ay noqoto xagga dhaqaalaha sanduuqyada la sameeyay la furay sanduuqyada qof walba wuxuu heli karayo oo ku daro ku darsado waxa weeyaan qofku sadaqadu bixiya isaga ay anfacaysaa waa u sii horeysa adduunka waa laga tagayaa sidoo kale haddii ay jirto dad is ururiyay oo iyagu gruubyo ah oo ama maxaan ku raday jaarantiyo inay iyaguna si uga qayb qaataan maxaan ku raday jaarantaana uga qayb qaataan iyana waa boorinaya waxaan si gaar ah halkan uga dirayaa fariin ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Istanbul waxaan ka codsanayaa inay garab istaag muujiyaan walaalaha Turkiga iyo dadka Soomaalida ee dhib gaaray khaasatan maxaan ku raday walaalaha Turkiga inay si weyn u garab istaagaan maadaama aynu nahay haddaynu nahay Soomaali walaalaha kaliya aynu leenahay Turkiga yahay waxaan ka codsanayaa jaaliyadda Soomaalida ee ganacsatada inay garab istaagaan walaalaha Turkida ay dhaqaalaha gurab istaagaan maxaan ku raday dhiiga inay shubaan ay ku garab istaagaan labada qodob ee ugu muhiimsan waa in dhaqaalana lagu garab istaago dhiigana la shubo si loo badbaadiyo nafa badan hadda qodob warkii ugu dambeeyay soo dhacay wuxuu sheegayaa dhimashadu inay maraso 5429
dhaawacuna wuxuu marayaa 22,600 ayuu marayaa marka waana laga yaabaa saacad kastana waa la filan karaa inuu sii kordho dhaawacu waxaan kaloo halkan baaq ka dirayaa magaalooyinka aan weli la soo xiriirin ama aan xiriir ka hayn hadii ay jiraan dad xiriir ka haya hala soo xiriireen safaaradda iyo guddiga jaaliyadda hala soo xiriireen sidoo kale waxaanu ilaa hadda baadigoob ugu jirnaa oo la leeyahay dad tiradoodu aanay sugnayn oo arday ah oo gobolka dhibka ugu badan ka dhacay Kahramaan oo weli la leeyahay hadii ay cid xog ka haysaa hala soo wadaagto safaaradda iyo guddiga jaaliyadda si ay iyo guddiga ardada si loo raadiyo loo sabata bixiyo waxaan ina wada sugaya dhamaanteen inaan ka qayb qaadano gurmadka masiibada rabbaaniga qadarta ilaahay keenay qof walbana mas'uuliyad baa ka saaran mid insaannimo iyo mid akhlaaqnimo iyo mid dadnimo mas'uuliyad baa ka saaran marka waxaan baaqayga ugu dambeeya aan diraya uu yahay haddaan nahay dadka ku dhaqan dalka Turkiga safaaradda iyo jaaliyadba aan gacmaha isqabsano oo aan u midowno sidii aan gurmadka uga samata bixin lahayn dadkeena dib ku soo gaaray wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum